رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة محمد مدنية مقالة مدينة لون اسمية وآية سورة مدينة أي كمتهاي وهي وآياتها 38 صدا يسديد آية وآية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إلهي مقعيسا كبالله والله صو الرحمن نعريس بدن الله صو الرحيم نعريس بدن. الذين إلهي وحول يكوي كفروا الذين كفريين وقالوين وصدوا الذين الناس صدتك عن سبيل الله إلهي جدكي تحقي سيك الريبين. الله إلهي أعمال الذين كعمليالكودي وبريي الذين إلهي بحول الله يكوي كفروا كفريين وصدوا الذين كاس الناس صدتك عن سبيل الله إلهي حقي سيك الجيديين. الله إلهي وعلي أعمال الذين كاس عمليالكودي وبريها إلهي والله يعي سبحانه وتعالى. كفارتا إني إسلامك قاتان ديدين غير كود إني إسلامك قلان ديدين إلهي عمليالكودي وايه هو بريي وحن نفعي عمل كاس وليه ملها عملك uu buri ilaahay waxa way lahaayeen waxay sameey jireen markay adduunyada ay joogeen gaalada acmaal birri in dadka wax la siiyo la qoodiyo qaraabado la xiriiriyo waaya marka suuradan awalkeedii waxay xiriir leedahay suurada hore suuratu ahqaaf aakhirkeedii aakhirka ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala suuradaas fahal yuhlaku illa alqawmul fasiquna لهلقي ما إلى قلوب فاسقين مويين وحين لهايين قلوين كاس أنا وحين لمتى ميش وحا كجرت سؤال مقدره سيلو هلقا قوم فاسقين أيوة أعمال وناكسن له وددك أيوة احتران وددك قوديان وهي مركاس إلهي سبحانه وتعالى شيء فاسقين تاس وقوة كفرية wadada ilaahay dadka ka reebay acmaashooda ilaahay waa buriyay maxay marka acmaash ay sameeyeen ilaahay dartiis uma sameeyeen min cinda anfusihim ay ka sameeyeen ilaahayna ma amrin والذين دولك إلهي وحر آمنوا رميين وعملوا الذين الصالحات أعمال سوبان عمل فلان وآمنوا الذين بما كي رميين نزل ماذا على محمد النبي محمد كل الوسود جي وهو ما قاسنا حق مسون وايه ومسون وايه من ربهم الذيك ربي حقسنا حاله كهذا حقاس كفر إلهي ربي قوايا عنهم الذيك حقودي سيئاتهم الذين آمنوا وما يالكودي وأسراوا وأصلح إلهي بالهم الذين حالكودي أوصوا بها أو هجاجها والذين إلهي وحول يدولك آمنوا الذين رميين وعملوا الذين الصالحات أعمال صوبان عمل فلين وآمنوا الذين بما كي رميين كي قودي سنزل ما على محمد النبي محمد كرك الوسود جي وهو ما قاسن الحق مسون واي من ربهم الذين ربي حقيقة حاله كهذا حقاس كفر ربي عنهم الذين حقودي سيئاتهم الذين ما يالكودي أو كالصراع وأصلح ربي وبالهم لذيك حال كودي أوصوا بها إلهي وحول ذاتك كل ميي إيمان يعمل صالح نبي محمد الرمي يحيي الوسود جي قرانك وأنا حق ثابت وصوان إلهي ذاتك ذنوبته إلهي واتراي شأن نقول وصوا بها وحين آية مقابل أتاي معناه ومقابل الضيفة وحال استقاب الشيء أو الإيمان أهل الكفر
kuwaas oo gaalada kufaarta oo fujaarta acmaashooda ilaahay waa buriyey kuwaan mu'miniinta oo baariyaashana sayi'aadkooda ilaahay waa u dhaaf shu'uuntooda axwaashooda ilaahay waa hagaajiyey waayahay iimaanka waxaa lagu gaarayaa bimuxamedin nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxayna soo gelaya aamanooda iska soo gelaya waladiina aamanooda hore isoo soo gelaya haddana takhsiis la sameeyey wa aamanuu bimaa nuzila calaa muxamedin ala yidhi waayo waxaa la ishaara shaniga nabi maxamed sal alayhi wasalam inuu aada u weyn yahay amarkiisa waxaa kaloo la ishaara way nimankan ahlu kitaab yuhuudi nasaara dalaalkooda inay lumeen oo baadiyooween maadaama ay ku kufriyeen nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam rasuulkooda hadday raba haba rumeeyaane kufaar waay maxaa yeele hal rasuul qoftay beenisa rusushoo dhan waa beenisa masiirkiisana waa jaxiimo daalika idlaalka celi daalika madkuurkaas idlaalka iyo takfiiru sayi-aadka islaaxulbaal inta loo celiyaa daalika kaas idlaalu acmaal adalla acmaalahum kafara canhum sayi-aatihim wa aslaxa baalahum saddexdaas ficil masdar laga fahmayo mushaar ileyhi u laabanaa daalika idlaalu acmaal iyo takfiiru sayi-aat iyo islaaxulbaal acmaashoo la hagaajiyo sayi-aadkii oo la dhaafo la asturo xaalkii oo la hagaajiyo oo acmaashoo la buriyo waa daalika idlaalku waa acmaal burin ila gaalada acmaashoo ilaahay waa buriyey mu'miniintana sayi-aadkoo ilaahay waa asturay xaalkoona ilaahay waa hagaajiyey xaasilun mid xasira waaye arrinkaas biana aladiina kuwii kafaruu kufriyeen itabacuu ladiinkaas albaadila baadilka inay raaceen sababteeda waa xasiray wa ana aladiina wabisabab ana aladiina duulkii aaman rumeeyeen itabacuu ladiinkaas alxaqa xaqa inay raaceen sababteeda waa xasiray min rabbihim rabbigooda xaggiisana xaal uu ka ahaaday xaqaas kadalika yadribu llahu linnaasi amhaalahum yadribu llahu ila linnaasi dadka la-aantooda amhaalahum amhaal alfariiqeyni labadii kooxood xaaladahoodii oo caddeehaa kadalika darban caddeen darbigaasoo mithla darbi caddayntii mathalkeeda ee darbigaasoo madkuuri lasoo sheegay ilahi wuxuu le dalika kaas xaasiru mid xasira wa biana aladiina kuwii kafaruu kufriyeen itabacuu ladiinka albaadila baadilka inay raaceen sababteeda waa xasiray wa ana aladiina kuwii duulkii waa aaman rumeeyeen oo atabacuu ladiinkaas alxaqa xaqa inay raaceen sababteeduna waa xasiray min rabbihim rabbigood xaggiisana xaal uu ka ahaado kadalika yadribu llahu linnaasi amhaalahum yadribu llahu ilahi linnaasi dadka la-aantoodi amhaalahum amhaal alfariiqeyni labadii kooxood xaalayaalkoodii oo caddeehaa darban usoo qadar caddeyn darbigaasoo kadalika mithla darbi caddayntii mathalkeeda darbigaasoo madkuur la soo xuso dayaacaas ilaahay gaalada acmaashooda waa u dayacay oo iyaga ay aaminsanaayeen ay dhahayeen waa xasano oo u dayacay waxay ku xasishay iyaga waxay qaadeen dariiqulbaadil waldalaalay qaadeen saas awgeeda ilaahay acmaashooda u buriyey dadka mu'miniintana waxay qaadeen dariiqulhudaa warashaad ilaahay waa hanuuniyey dariiqu najaad ilaahay ku hanuuniyey wasacaada marka ilaahay wuxuu leeyahay kadalika yadribu llahu linnaasi amhaalahum labada fariiqood axwaashoodii ilaahay waa caddeynaa waaya bayaan waadixa oo ilaahay caddeeyaa sida qofka bini aadamka ah oo u noqdo calaa basiiratin min amri diinihi wa aakhiratihi muminka waxaa u sugnaaday sacaada iyo najaax kaafirkana shaqaawo iyo khusraan hoog iyo khasaara u sugnaaday gaalka faidaa laqiitum aladiina kafaruu ilahi wuxuu le faidaa laqiitum idinka aladiina duulka kuwii haddaa la kulantiin kafaruu kufriyeen fadarbu riqaabi luqumahoodii garaacid garaaca xataa idaa adkantumuu idinka hum ladiinkaas
haddii aada nugleysiin oo jilcisiin fashudduu idinka alwathaaqa xirko ku xirxira fakhtaaruu usoo qadira doorta fa imaa manan bacdu imaa manan imaa an tamanuu inaad galadaysatiin doorta manan galadaysa bacdu bacda shadda alwathaaqi xergaha la xiridooda bacdigeedi wa imaa fidaa'an wa imaa an tufaaduuhum inaad furatiin kala doorta xataa talaala xarbu xarbadii awsaarahaa xarbada culeysyaalkeedii intay ka dejiso daalika kaas darbiga ah garaacidda oo gaalada la garaacayo iyo shadiga gaaladoo la xirxiraayo maniga galladaysiga iyo fidaha intaas uu noqona mashaaruuleyga alamru soo qadar daalika waa khabar alamru amarka daalika kaas waa madkuurkaas waayo garaacidda iyo shadiga iyo maniga iyo fidaha waa walow yashaa allahu ilaahay hadduu dooni lahay lan tasar ilaahay minhum ladiikan kafaruu xaggooda uu ka gargaari lahayo walaakiin warkii loo naqay amarakum bilqitaali usoo qadar amara ilaahay kum idinka bilqitaala dagaal oo idin faray liyabluwa ilaahay bacdakum qaarkiina bibacdan qaar kale inuu ku jaribo ku imtixaamo ahaan waladiina duulkii qutiluu ladiinka fii sabiilillaahi ilaahay jidka dhexdiisa lagu dilay falan yudila ilaahay acmaalum ladiinka camalyaalkooda hoobi maayo sayahdii ilaahay him ladiinkaas waa hanuuniyaa wayuslixu ilaahay baalahum ladiinkaas xaalkooda waa suubiha wayudkilu ilaahay hum ladiinkaas aljannata jannadii u geliyaha carafa xaalhaa jannada ou aqoonsiiyey lahum ladiinkaas uu aqoonsiiyey ou baray ilaahay wuxuu leey faidaa laqiitum idinka muminiina aladiina duulkii waa kuwii haddii aad la kulantiin kafaruu kufriyeen waa gaaladii waa cadaadiina kufaarta haddaad la kulantiin fi lxarbi waa dagaal aad ku kulantiin fadarba riqaabi luqumahoodii garaacid garaaca darbi waa masdar ficil maxduufa lagu nasbiyo garaacid garaaca luqmaha ka garaaca seefta ku garaaca madaxa ka jara sida shartooda loo celiyo iyo aahaamta ay caalamka ay ku faafinayaan xataa idaa asqantumuu idinka hum ladiinka haddii aada nugleysiin ood jilcisiin wax dhaawacmay wax la dila ay naqdaan awoodooda aada daciifisaan iyo casiimadoodii daciifisaan qaqabta gacanta ku dhigawa fashudduu idinka alwathaaqa xirka ku xira waa xira waa xirkihii waa iyagoo la qafaalay qabta xirxira wathaaqa waxa waaye waa xariga ninka asiirka la qafaalay lagu xira fakhtaaruu marka ilahay wuxuu le doorta oo kala doorta uu soo qadare imaa manan imaa an tamanuu inaad galadaysatiin manan galadays bacda shadda alwathaaq xergaha xiridooda bacdigeedi aada galadaysatiin wa imaa fidaaan wa imaa an tufaaduuhum inaad furatiin kala doorta labadaas waaye haddii aada nugleysiin oo jilcisiin awoodooda daciifisiin qaqabta iyagoo la qafaalay xirxira markaad xirxirtiin labaa qiyaaru leydii inaad iska sii daysaan oo suu nabigu uu yihi sala allahu alayhi wasalam ama inaad fidyo ka qaadataan ood madax furasho dad adinkani laga qafaasho muslimiina ad ku furataan ama lacag adinkaa khiyaar waa la yidhi marka oo marka gaalada awoodooda la baabi'iyo xataa tadacla xarbu xarbadii awsaarahaa xarbada culeysyaalkeeda intay ka dejiso ilaa macnaa waxaa lawadaa xarbada ay ka dhammaato ay gabagabowdo islaamka uu cizoobo
shirkigana uu baabooyo gaalnimadii baabacdo oo daciifto saasaa la wadaa al-amru amarka daalika kaas waa ilaahay buu yidhi arrinta waa midaas oo ah in gaalada la garaaco luqumanka ilaahay gaaray maxaa yeele qofka haddii marba luqunta laga garaaco dhimashadiisu waa soo degdegay laakiin gacan iyo lug iyo haddii laga dhufto waa laga yaaba inuusan dhiman laakiin mar haddii qoorta laga dhufto oo laga garaaco waa u dhammaatay marka darbigaas iyo xirxiridaas iyo galladaysiga iyo fidaha waayo arrintu walow yashaa allaahu ilaahay hadduu dooni lahay lan tasa ilaahay minhum ladiinkan gaalada ah waa ka gargaari lahayo maba idanka la filahayn ilaahay dagaalkoodii waa haligi lahay adinkoona idinlama shaqaynin dagaal gala adinkoon ila dhihin seefta qaata adinkoon ila dhihin dhulku ilaahay la goolahay waa haliga dhulgariga lagu ridaa dabeelaa lagu diri karaa malaa'igaa lagu soo diri karaa ilaahay ciidamihiis waa fara badiyi laakiin muminiina adinka ilaahay dagaalka waa idin faray walaakin warkii oo naqay amarakum muminiina bilqitaali dagaal ilaahay idin faray liyabluwa ilaahay bacdakum qaarkiin bibacda qaar kale inuu ku jaribo ahaan ilaahay waa idin imtixaama iimaankiin iyo thabaatkiin ilaahay imtixaama wuxuu kaloo ilaahay rabaa niman shuhadaa ilaahay inuu idinka samayso oo shahiidoobeen oo shahaado helay ilaahay inuu idinka samayso saasuu ilaahay dagaalka idin faray oo aad heshiin thawaabu jaziira oo aada u weyn fadlin aada yeelatiin arlada nadiifinteedii in kufriga iyo shirkiga in laga nadiifiyo fadligeedu aada yeelatiin taas waa wuxuu ilaahay raba waaya ilaahay marka wuxuu waladiina duulkii qutiluu ladiinka fii sabiilillahi lagu dilay falan yudila ilaahay acmaalahum camalyaalkooda hoobi maayo oo ma dayacaayo waa u labalaaba sayaadiihim ilaahay waa hanuuniha dariiqu sacaada ilaahay ku hanuuniyaa wayuslix ilaahay baalahum ladiinkaas qutlu fii sabiilillahi waa xaalkooda ilaahay waa suubiha iyo shaanigooda wayudkhilu ilaahay hum ladiinkaas qutlu fii sabiilillahi aljannata jannadu ilaahay geliyaa waa daaru suruur walxubuur daarta la yidhaahdo ilaahay uu geliyaa waa carafa xaal ilaahay haa jannada lahum ladiinka uu aqoonsiiyey ou baray qof walba jannada meesha uu ka degan yahay gurigiisa iyo mansilkiisa waa yaqaanaa gafi maayo waxaad u moodaabo inayba degnaayeen maalinta la uumay oo la diyaariyey maalinta iyaga la uumay ilaa xilligan inay dad degnaayeena u moodaa qof walba wuxuu yaqaanaa meesha guri jannada uu ka degan yahay mansilkiisa wadamadiisa xurulcayntii loogu talagalay qof walba waa yaqaanaa gafi maayo waa ilaahay awoodiisa subxaana wa tacaala guriga marka adduunyada u joogo gurigiisa sida u yaqiin ousan uga lumeyn ka daran u yaqiin u garanaa guriga uu ku leeyahay jannada waaya nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu gacanta ku dhigay nin la dhihi jiray thumaamata ibnu uthaal hore bani xaniifa ahay nabigaa wuxuu diray ciidan fardo ninkanay soo qabteen soo xirxiran waxaa lagu xiray tiirarka masjidka tiir ka mida lagu xiray fa imaa manan bacdu wa imaa fidaanti wa tiirka markii lagu xiray nabigaa u yimi sala allahu alayhi wasalam waranaa la yidhi nabiguna aada u yaqiin ninka in la yaqaano waana soo islaamay saxaabi jaliil ah laakiin markaa gaal uu ahay saxaabadu aada u laayay ka warna layidhi maa cindaka maxaa haysaa markaasuu yihi cindii khayr yaa maxamed khayraa yaalo haddii aada disho nin dhiig kaa galaad disho wiil haddaad galladaysato u nicmayso sii daysana nin shaakir oo abaal kuu haayo ayaan ahay wiil abaalka iloobi maayo haddii aada xoolo rabtaana intaad doonta su-aalo oo ku siihaa nabiga waa ka tegey
وحروا نبينا صلى الله عليه وسلم dhiiggiisa inuu daadiyo waxaa ugu weyn inuu soo islaamo lacag inuu ka qaato islaamka inuu qaato uu badbaado aakhiradiisii ay hagaagto oo nabiga rabay waa ka tegey maalinta labaad uu yimid maalinta ku xigta maxaa haysa akhbaara warkii aan ku dhahan hayo warkii aan ku dhahay waa wax kale ma hayo haddaa idisho nin dhiig kaa galaad disha haddaad isii daysaana waa awaalan kaaga haya haddaad xoolo rabtaan intaa rabta sheego waa ka tegey maalinta saddexaadna uu yimid maxaa haysa intaa waxaa mogta masjidka uu xiran yahay inuu ku hanuuna la rabay loogu soo xiro waa saas xikmadda khayrkaas iyo cilmigaas iyo salaadaas wanaaggaas iyo akhlaaqda wanaagsan meesha ka socoto inuu ku hanuuno kabacdi sidii uu yidhi kabacdu nabigu hala sii daayo xariggaa laga furo hala sii daayo xariggaa laga furo fasaxataa la yidhi warka waa dhaqaaqay masjidka meel u dhow ou tegey geetamareed ku yaallo waa quwaysay masjidkuu soo galay markaasuu yidhi ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna maxamedan cabduhu warasuuluh tawxiidkii waa ilaahay waafajiyey waa islaam markaasuu hadlay wuxuu yidhi wallaahi maa kaana cala alardi abqadu ilaya min wajhik arlada ilaahay waxaan ma saarnuu yidhi wax adiga wejigaa aan ka nacbaasho badanaa ma jirnuu yidhi aadaan kuu nacbanay maanta wejigaana wuxuu noqday axaba alwujuuhi ilaya wejiga lagu jeclaasho badan yahay aadaan hadda kuu jeclaado yidhi diintaadaan diimaha diinka loogu nacay badan yahay agteyda u ahay maantana wuxuu noqday axaba diini kullihi ilaya beledka aada joogtaana aadan u nacbanaayo laakiin xaaladda hadda aan joogo beledkaa wuxuu noqday axaba albilaadi kullihaa ilaya waaye saasuu ku islaamay wuxuu noqday saxaabi jaliil oo aada wey yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuruu llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu rumeeyeen in tansaruu haddaa gargaartiin allaha diinallaahi ilahay diinkiisa haddaa u gargaartiin u hiilisiin yansur ilaykum idinkan idin gargaare oo idin hiiliya calaa caduwikum cadowyaalkiina korkooda idinka hiiliya wayuthabbit ilaahi aqdaamakum gomdiyaalkiin ilaahay sugee yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu ilay rasuul rumeeyeen muminiinta ilaahay u naadiyey in tansuruu idink allah diinallaahi ilaahay diinkiisa haddaad u gargaartiin iyo rasuulka ilaahay iyo warasuulahu ilahay rasuulkiisa haddaad u gargaartiin iyo diinka ilaahay waaya yansur ilaykum idinka calaa caduwikum cadowgun ilahay idinkaga gargaaray nasrigiisa ilahay waa helaysiin wayuthabbit ilaahay aqdaamakum gomadihiina sugee koo warta waxaa adinka nasriga ilaahay diinta ilaahay hiilinteydii adni laga helo barta wacmal fala ummadda bara jeclaada ilaahay rasuulkiisa waa hiilinta waa taas cadowgiin ilahay waa idinkaga hiilaa laakiin haddaadan ilaahay diinkiisa u gargaarina oo alla yacdiin ilaahayna waa idin layacaa subxaana wa tacaala oo faraw ilahay idinka qaadaa gomadihii ilaahay sugeewa haddii dagaal la galo iyo qitaal oo gaalada la galo gomadihiin ilaahay waa sugaawa waladiina kuwii kafaruu kufriyeen fatacsan faqallaa calayhim dhe marka faqallaa calayhim ilaahay faqallaa ilaahi calayhim ladiinka korkoodi tacsan halaag oo ku xukmiyey lahum ladiinka la haligo waa allala ilaahay waa buriyo acmaalum ladiinka camalyaalkoodan ilaahay waa buriyo waladiina kuwii kafaruu kufriyeen rabbigooda ku kufriyey fatacsan lahum faqallaa calayhim dhe marka faqallaa ilaahi calayhim korkooda ladiinka korkooda tacsan halaag oo ku xukmiyey lahum ladiinka la haligo wa allala ilaahi acmaalum camalyaalkooda ilaahay waa buriye waa baabi'iyey ilaan maxaa yeele acmaasha marka horeba
وعمل شيطان لغو رارا قرير هاي واي وشيطان لغو فرحناي وعمل إلهي لغو دوانا مين عماشو ساسي أبرد واي ذلك إلهي وحوري كاس مذكور كاس تعسق إضلالك هلا جدا يعمل برنتو حاصر من حاصر بأنهم بسبب أنهم لديك كريهو لديكاس ماكي إنيك هذين صوتي وحسرين أنزل الله إلهي وسود جي فأحبض إلهي أعمالهم لديك عمليالك ذواه بيي ذلك مذكور كاس وتعسق وهلا جدا وقال هذا الله اللي جاي يعمل كود اللبري حاصر من حاصر وحوك حاصرين بأنهم بسبب أنهم لديكاس كرهوا لديك ماكي إنيك هذين النعين صوتي وحسروا أنزل الله إلى ما وسود جي هلا قال له هل جاي عمل كذا البري وحكى لمان وصوتي وحوي وحيد لبسدين إلهي رسول كيس القرآن كي لبسدين وأي نعين وهكذا فحبض إلهي مرك عمل أعمالهم لديك عمليال كودن إلهي وهو بيي أفلم يسيروا مرك إلهي وحول الذين كاس في الأرض الحديد مويسن كسعانين أفلم يسيروا إلا أن مع القرآن وحي أولف سدين النبي وحي أهاين داد إسكسي دي سن وحي ربان سمين آيان إيه أهاين القرآن كان أحكام وطا تكاليف وطا ونفط عن جعلين وإيغنا وحي إسكبرتين وعادي ونقطي niman hogaankooda diisanayeen wax irwaan sameeyaan shahawaadkoodii macayaalka soconayaan marka ahkaamta quraanka faraya iyo hala dukado alla soomo zakada hala bixiyo ahkaamtaas ay dhibsadeen aaday u naceen daacada ilaahayna waa naceen markaas ilaahay amalkoodii ay ayaga sameeyeen oo aan daacaysan ula jeedin ilaahay waa buriyo أحبريها وكفر قاس أو صواو أفلم يسيروا الذين كاس أو كفروا في الأرض التي مويسا كسعنين أو فينظروا الذين كمرك أي فيريان كيف الذي كان عقوت الذين كوي عرفتوا ذيات من قبلهم الذين كان كفروا هرتوا هذين دمر الله إلهي عليهم الذين كاس الذين من قبلهم على ضميرك وأهل لقي وللكافرين أمثالها عاقبة مثليال كيد هذا الكافرين قال لها أنتم أصغنا ذلك نصر المؤمنين وعليه نصر المؤمنين قهر الكافرين قالوا للدلي مؤمنين تولوا قرقاروا حاصر من حاصر بأن الله إلهي مولى الذين دولكي اللي وقرقاراي إنه يسوتد وكحسر آمنوا لذكر مين وأن الكافرين قالوا لا مولى مد وقرقار اللهم كفارة الهانت كافرين الهانت وما أهان إنه صنوا أنا سوتد وكحسر إلهي يحول أفلم يسيروا قال عفسيها مرك تخويف إلهي يسميه عاقبة الكفر قالوا عفسيها قال لماذا عربتي وحول إلهي حسوسيها dadka oo gaalada ka horeeyay kuwan ka horeeyay sida ilaahay loo haligay al xasuusiya marka ilaahay wuxuu leeyahay afalam yasiru الذين كان كفروا في الأرض الله دحين مويسن كسعنين في البلاد مقالوين كواوين مويسن كسعنين أو مركا أي أركان فينظروا أي فيريان وإيغان كيف سيدي كان عقوة الذين كو عرفتوا ذيات من قبل الذين كان كور هذين بحي كوهب سدي ومدهك أيغا كوري غير عاد غير ثمود قوم اللوط فرعون غير كودي دقادي واوين المجرمين تاعي هلاقي كل عاد ومركا أي فيريان وإيغان دمر الله إلهي عليهم الذي كركودي وهلقي دمرهم إلهي مدين دمر الله عليهم على الرعسين دمرهم دمر عليهم معناه ودحي فرق وين وحا حيل لير دمر الله عليهم توا يعني وحوا أيجي يحولهودي قريهودي
iyo awlaaddoodii dhammaan waa ilaahay halliga laakiin damarahum haddii laa iga keliya naqaneen halaag daboola ayaa ilaahay ku riday waa sida guri dumay oo kale asxaabtiisa dadka deganaa ku dumay oo kale waa baaba'een walilkaafiriina amthaaluha wa amthaaluha caaqibadan matalyaalkeeda alkaafiriin gaalada hanta u sugnaata saatan cuquubadan oo aada u xun oo adeega badan ay gaalada leeyihiin dalika kaas nasr muminiina loo cilaayay qaalulkaafiriin xaasil min xasila waa biana allah ilaahay mawla ladiina duulkii allihii u gargaara inuu yahay ama rumeeyeen waliyulmuminiin ilaahay waaye biana allah ila mawla ladiina duulkii allihii u gargaara inuu yahay sababteedu ku xasila ama ladii ka rumeeyeen waliyulmuminiin naasirahum waxaafidahum wa ana alkaafiriina gaalada laa mawlaa mid u gargaara lahum kaafiriin laanto inaysan u sugnaan sababteedu ku xasila gaalada naasir mala muciin mala muqiis mala laakiin muminiinta fii xifdillaahi wa ricaayati ilaahay dhowra ilaahay xifdinaayo kaafiriintana wax cadaabka ilaahay ka difaaca malaawa in allah ilaahay yudkhilu ilaahay aladiina duulkii amar rumeeyeen wa camilu diinka saalixaat acmaal suban camal faleen jannaatan jannayaalo geliha jannaadoo tajrii min taxtiha jannaada hoosteeda alanaar waryaalka ay dureyrayaan waladiina kuwii kafaruu kufriyeenna yatamatacuuna way raaxaysanayaan ويأكلون الذين كفروا ويعنايان كما تأكل الأنعام أكلا عنت أي عنايان أكل قاسو مثل أكل الأنعام أو المصدرية كاتب معنا مثل ماذا مصدرية مثل أكل الأنعام من عريض عند ذي مثل كذا عنايان والنار نار تينا مثوى مكان شواي مثل قاس لهم الذين لا أنتم أصولنا وكأين وحبضا ومن قرية من أهل قرية أهل كيدة أهلقناهم بودمر أهلقنا أنهم أهل القرية أن أهلقنا قرية صور هي إذا أشد من درنام بدنا قوة من قوة حق بود من قريتك من أهل قريتك بالله محمد قرية هذه أهل كيدة كدرنام بدنا التي قرية صو أخرجت التي كأذيك كبحي سي فلا ناصر متقرقار اللهم أهل القرية لا أنتم وما أهان إلهي يقول إن الله إلهي يدخل إلهي الذين دلكي أمر رميين وعملوا الذي أصار عمل سوبا عمل فرين جنات جنيالو وقليها جنات تجري دريرة من تحتها على نار ويالك دريرة أيام وعدتكم مؤمنين وأعمال صالحات كسمي وحي كسويهم جنات وسرور الجنات وحانا هوس قصورتها صراحة دار hoostooda waxaa qulqulayo wabiyaalo waxayna leeyihiin wax alla waxay ishtiheeyaan mashaaribt madaacim malaabis waladiina kuwii kafaruu kufriyeen yatamatacuuna waa iska raaxaysanayaan macnaha waxa waa kaafiriin ciribtaan way kaafilay ka yihiin wayaakuluuna way cunayaan kamaa taakulu ancaam aklan cunid أقلقاصو مثل أقل الأنعام من عريض عندي مثل كذا سيدة حولا وحي عنان إسكا عنان يعيشون في الدنيا إسكا نولي سيدة حولا ونولي هنا وكلا وعنان سيدة النعم ولدي دوابتي عنان وح فكر ملا بعث حساب جزء انت يكون فكري مايان وح يقدم بيس وهي إنسان لماذا حيوان نمض يودوين حيوانية يودوين وحول النمض يودوين والنار نار جهنم مثوى وإلهي ويل مكان نجاشوا مثوى لهم سنة مسكن كودي جوري كودي مصير كودي آخره والنار وكأي إلهي وحول وحبضا ومن قرية من أهل قرية الكيدية أهلقناهم أن أهلقناهم أهل قرية فربضان أن أهلقناهم قريضه هي إذا قريضه أشد من درنام بدنا قوة من قوة حق أود من قريتك هذه قريضة حق ذلك أود كدرنام بدن التي قريضة أخرجتك هذه كبحي سيكاسارت وأهل مكة ومكة كاسارين أود كبضا نمن لهاي أن إلهي بحير أنك هلقني بابي إنه قردردو يدل مقودة صوتي أنك هلقني كوا نصاص وكلا وإيغان ولا هلقا
waxay ku tashteen ilaa nabiga inay dilaan ayna waa la haliga ilaahay yiri falaa naasira lahum yiri gaaladu ahlu qaryaha mid u gargaar malaha oo cadaabka ilaahay ka badbaadiyahay marka aydan waa tasliya waa soorsiin nabi maxamed lagu soorsiya oo leeyahay saasan mujrimiinta ku sameeyeen qoomka kamida magaalada Makka markii nabi maxamed uu ka tagay asoo muhaajir Madiina u haajiray oo godkiina uu ku dhuuntay wuxuu gadaal u soo minacsaday nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu godka ka baxay godkii ay ku dhuminayeen asiisida Abu Bakar markaas wuxuu yiri nabiga innaki la habul bilad ila Allah wa habul bilad ilayhi magaalada Makka la hadlo adiga Makay magaalooyinka oo ilaahay aad u jecel yahay kamid aata wa habul biladna waa tahay magaalo mid lagu jeclaan badan ilaahay aniga intika walawla an qawmaka akhrajuni minki ma qarashtu hadii qoomka ay soo saar lahayn walawla an qawmaka akhrajuni inay soo bixeen ma hateene ma qarashtu soo bixeen ayda markii ilaahay soo dejiyo ka ay min qaryatin afaman kaana ala baynatin min rabbih afaman dul kaana man ala baynatin hujja korkeeda ahaade baynado min rabbih man rabbi xaqiisana ka ahaad kaman dul man la tooya man la mid yahay zuyina su'a amali man ka amalkiisa kiisa xun loo man ka laandiisa loo qurxiyo loo ziinay oo tabcu man ka awaahum habayaalkooda raaceen waa maya laba mid aanu afaman dulki kaana man ala bayinatin hujja korkeeda ahaade basiira oo diinkiisa u huwan yahay sida rasuulullaahi mukhtaar sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisii oo muuminiinta waaye bayano min rabbigiisa xadiida ka ahaatay kaman duul ma lama tooyahay zuyina suuca amali manka camalkiisa kiisa xun loo qurxiyo loo zuuniyey camalka qabiixa ah wanaag u arkay ma la tooyahay oo tabacu ladika abaahum ladika manka oo tabacu manka dhe man zuyina abaahum yaalkooda iska raaceen waxay naftooda jecesha baadilka naftooda jecesha iska raaceen kufrigi ma la tooyahay waxay weel لا يتساويان أبدا مصن ولقول مصنها سيدنا إن دولا إن وحركة يسن أسنين يسن أسنين لوضع كوحة مثل الجنة جنة الصفة دي تلمان تيدي التي جنة سوى عدة المتقون كو إليك عبصدها التي ذا الله يبوهي فيها النهار ويالا فيها جنة الحيدة هذين واي صفدين ويالو فيها جناحين هذين واي صفدين أنهارت من ماء بيا حقو ذكاء ما يقول غير آسن من الدرسو ما غير كيسة وأنهارنا هذين وبيالو أنهارت من لبن عنا حقو ذكاء لبن كل لم يتغير دعم لبن كاس لدن كيسة أو سن درسومين وأنهارنا هذين وبيالو أنهارت من خمرة خمرة لدة نشارين كوع وإلهانتو الأمع وأنهارنا أهادين وبيالو أنهارتو من عصرين ملب حقو ذكاء عسل كاسو مصفا لسافيري ولهم متقين وحاوصونا فيها جنة الحديد وحاوصونا أصناف وصوغد النوعيالو أصناف من كل ثمار يالو كل حقو ذكاء ومغفرة وصونا دمناف مغفرة من ربي متقين تربي وحكي سنكات كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقد ضاع معهم فعوصوا غدره أمن هو خالد في هذه النعيم أمن هو خالد أمن دول هو منك خالد مدوارا في هذه تنحي الكوارا تندي النعيم برواقضة نتكيس وكوارا كمن ملتوي هاي هو منك خالد مدوارا في النار دحين الكوارا أو سقو منكاس ما أنبياء ورابي ما يقو حميما يكرر أو فقد ضع ما يقاسنا أمعاءهم منكاس مدعي ريال كودي أو قويي قد ضعوا قويي
waayo maya lama mid ahan isku mid maaha ilaahay wuxuu leeyahay mathalu jannati jannadii sifadeedii mathal bimacnaa sifa waayo tilmaanteedii jannada yaabka lahayd sifadeed allatii jannadaasoo wucida almuttaquuna kuwa ilaahay ka cabsaday haa latida loo yaboohay oo loo ballan qaaday oo ilaahay u ballan qaaday tilmaanteedii fiiha anhaarun ilaa aakhir aaya fiiha anhaarun ilaa laga gaaro oo makfiratun min rabbihim waaye fiihaa jannada dhex anhaarun wabiyaala inay ahaadeen waaye tilmaanteedii wabiyaalaha ku sugan oo dureeraya qulqulaay anhaartaas mimaan biyo xaggooda ka aatay maa igoo keyr aasinin ku doorsoomay keyrka biyaan doorsoomayn wasaqoobay oo saafi ah waxa wasaqa aan lahayn waayo anhaarulmaai salsabiil biyaha la yidhaahdo kuwaas waa dhadhankooda isbedeli maayaan wa anhaarun wabiyaalo ahaadeen anhaartu min laban caana xaggoodana ka ahaata labankaasoo lam yataqira dacmu labankaas dhadhankiisa aan doorsoomeyn waxaa kaloo ku sugan waa wabiyaalo jamac wa oo caano ah oo qulqula saafi ah oo aada u cad oo aanan ka soo bixin caanahaas xoolaha candhadoodii loodii arigi geelowa duruucdooda kama soo bixin wa anhaaruna ahaadeen ilah yiri anhaarto min khamrin khamr xaggeeda ka ahaata khamradoo ladatin lishaaribiina kuwa cabaay lahaantooda u mac waa khamro wax aaday u macdahay dhadhankeedu waa macay midaan hadda adduunyo dacmigeeda kariihawa lama jeclo waa la dhibsadaa riixadeed waa ure aad ay ureysa khamr dunyaa waaye ilaa qofti naftana waa ka hataa layidhi mana cabaysa nafta ilaa qof dabeecadda ka fasahada mooyeen qofka haddii dabcigiisa isbedelo oo fasado dhaqankiisa u xumaado xaar hataa waa cunaa mugta khamrada xaar waa ka urbadanta asay cunaayaan dadka cunaaya waxaa waaye dabcigayaa fasahaaday dhaqankiyaa fasahaaday waa lumeen laakiin wax la dhibsado waa midaan ilahay marka wuxuu ku tilmaamay ladatin lishaaribiin dadka cabaay lahaantooda u macaliyay waaye ma laha khamrada adduunyada sharay leedahay daroogada adduunya lagu cabay khamrada sharay leedahay sharteeda waxaa ka mid a caqligoo tago dhafoor xanuun matag kaadi intaasuu isku dara afartaas horta kariiha waata sifaadka khamrada adduunyada kariiha waata mid aada loo naco urayso waxay kaloo leedahay maankana waa duurisaa oo caqliga waa tega dhafoor xanuun zaa'idna waa leedahay matagna waa leedahay qofka waa mataga waana isku kaadiha mana iska warqabo qofka intaa marka ilaahay khamrada jannada ilaahay waa ka nasahay xaaladahan xunxun oo midan ay leedahay ilaahay waa ka nasahay qur-aanka ilaahay ku sheegay intaa inaysan lahayn wa anhaaruna ahaadeen ilaahay wabiyaalo jannada dhexdeeda anhaartu min casayn malab xaggiisa ka ahaada casalka musafan la saafi yeela aada saafi u ah dhadhankiisa wanaagsan iyo midibkiisa mana ka soo bixin shinnida caloolaheeda waxay ka soo burqanayaan jannada walahum waxay leeyihin ilaah yiri muttaqiinta fiihaa jannaada dhexdeedii asnaafu noocyaalo asnaafta min kulli tamaraati mirayaalo xaggoodana ka ahaada miraha iyo fawaakih ay leeyihin wixii macaanaada wanaagsanaaday leeyihin wa makfiratuna waa leeyihin dimi dhaaf naciim ruuxi aa la yihahda midkaan waa midka ugu sarreeya waa makfirada nicamtaasoo dhan haddaan soo sheegn waxaa aada ugu sarreeya midkaan makfiratun min rabbi maa ka sarreeya naciim ruuxi waa dunuubtooda ilaahay waa dhaaf raxmad iyo ridwaanay leeyihiin marka ilaahay wuxuu leeyahay markaas ahlu jannihi hal radiitum raalle ma naqateen raalle ma tihin maqsuud ma tihin waxay leeyihin wamaa lanaa laa nardaa yaa rabbanaa waqad acdaytanaa maa lam tucda axadan min khalqik maxaa nagu dhacay ilaahay
maxaana raal u naqa weyn waxaadna siisay waxaad axad oo qalqiga ka mid a aadan siina anagana siisay markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay ucdiikum khayran min dalik waxaas hadda aad haysatiin oo aan idin sii wax ka khayr badan ma idin siiyaa aan idin siiyaa markaasuu leeyahay uxillu calaykum ridwaanii falaa askhadu calaykum bacduhu abadan maanta waxaan ku dejiyaa dushiina ridwaankeyga maanta wixii ka bilowdeen idin carow maayo yaa ka weyn ridwaanka ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay uusan ku caroonin nicmo ka weyn ma jirto ومغفرة من ربه مرك وامدان كمن هو خالد في النار أمن أحد هو من خالد مدوارا في هذا النعيم نعيم الحديث متكوارا كمن ملتويا هو من خالد في النار الحديث متكوارا من النار كوارا إن نعمة نك هيس نعمة بدنية نعمة روحية قف إلهي لبض بسيء نعمة سواوين رضوانك مغفرة الرحمة ننهيس ودنا كبارا وان دمنين وحنوسنين يا وان دقوي كمان هو خالد في النار نار تلحيد كبارا ملتوية نار الجحيم او سقوم ماء لورابي بيو ماشي اهل الجنة اي شراب كودي معانت بدنا كعباين ايغا وحال عبسيها والله ورابيها بيو كل ماء ايغاس حميما يكل او فقطع ماء ايغاس امعاءهم mankaas madhaceeradooda uu googuuhayo googooye waa jarjaray kuleelkiisa daran waa ma yawla mid aanu oo minhum